maanta ay bishu tahay 25 bisha 11 2020 waxaa shir isugu yimid Prime Minister-ka dalka mudane Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo taliska qaybta lixdanaad iyo AMISOM taasoo ujeedadeedu ahayd dardargelinta hawlaha amniga qaranka loo hayo waxaa la isku afgartay in la ambaqaado isla markaasna la dardargeliyo hawlaha amniga si wadajir ah ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM maadaama ay jirto xaalado gaar ah sida doorashooyinka qaranka iyo baryahanba dhaqdhaqaaq ay ka wadaan meel kasta oo dal ka mid ah nabadiidka shabaab si looga hortago waxaa la go'aansaday in si wadajir ah looga hortago cadawga nabadiidka ee al-shabaab isla markaasna la bilaabo hawlgallo lagu dardargelinayo ka sifaynta meelaha ay shacabku ku dhibaateynayaan sida awgeed arrintaas waxay ku soo dhamaatay guul iyo is-afgarad mar dhowna waxaan rajaynaynaa in ay bilowdaan hawlahaas shacabkan uu arki doono waxaan aaminsanahay in guulo laga gaari doono iyadoo aan ognahay shabaab inuusan hadda talaba haynin oo ay muuqato inay quus taagan yihiin sida hadda bakool ay ka dhacday inay gubaan 7 baabuur oo raashin masaakiin ay iska leedahay oo ay yaani taas waxay cadeynaysaa in shabaab aan wax dan ay ka lahayn shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan ciidamadooda iyaga u taagan har iyo habeen inay difaacaan isla markaasna ay siiyaan wixii xog ah iyo gacan waxay u baahdaan insha Allah ujeedkeena intaas waana muxuu ahaa isku afgartay guud ahaan